daawada haddii aad maqasho affiliate marketing waa hab ganacsi kaas oo qofku lacag commission uga helaya alaab ama adeeg uu u xayeysiiyay shirkad ama qof kale oo baayac mushtari ah. Qofka xayeysiinaya alaabta waa xayeysiiye oo kaliya ee alaabta iskama lahan isagu, halka qofka kale uu yahay baayac mushtari mulkiyay alaabta ama adeegga la xayeysiinayo. Wuxuuna ganacsigani soo bilowday bartamihii 1990kii, waxaana markiisii ugu horreysay soo shaac bixiyay nin Maraykan ah oo lagu magacaabi jiray William J. Tobin. Haddaba qaabkan ganacsi daawade waa mid labada dhinacba faa'iido u ah, maadaama qofkii waxayeysiinayay uu helayo xoogaa commission ah, halka shirkaddii ama ganacsadihii alaabta lahaa uu helayo macaamiil cusub kuwaas oo iibsanaya adeeggiisa ama alaabtiisa. Xayeysiiyaha iyo baayac mushtarku waxay wada gelayaan heshiis. Heshiiskaasuna wuxuu noqon karaa saddex midkood. Ama si kale haddii aan daawada kuugu dhigo, waxaa jira saddex heshiis oo kaliya marka laga hadlayo ganacsigan affiliate marketing. Waxaadna faahfaahinta kala socotaa haddii eebbe idmo muuqaalka kan xiga.